qalbiga cuntada oo aan la kontroolin oo la iska badiyaa 6 qodob bay qulubta oo dhibaato ay gaarsiisaa. qodob koowaad, ilaahay marka aad hor taagan tahay kuma raaxaysanaysid, xalaawat almunaajaah ayaa kaa baxaysa meesha. waxaa kaloo kugu dhacaya dadka khalqiga ilaahay inaadan u naxariisanin, maxaa yeele qofku markuu dharagsan yahay wuxuu u haystaa khalqiga ilaah oo dhan inay dharagsan yihiin. waxaa kaloo ka mid a ay keentaa cibaadada oo culays kaa saaran, shahwadaadii oo ziyaado noqoto. marka dadka mu'miniinta masaajida ay ku jiraan makhaayadahaad adigu meeraysanaysaa. marka waxyaalahaas waa waxyaalaha qalbiga in cuntada la iska yareeyo, waxyaalaha qalbiga lagu daaweeyo ka mid tahay. marka haddaabad cunto cunaysid dhowr arrimood baa lagaaga baahan yahay. awalan, marka u horeysa luqmada aad cunaysa inaad ku cunto niya saalixa, si cuntadaadii aad cuntay laftirkeeda cibaado ay isugu bedasho, ruuxdaadina ay maaragtay u kordhiso. in cuntada aad calooshaada miisaanto sida nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yiri thuluthun liطacaamihi wa thuluthun lisharaabihi wa thuluthun linafasihi. 3 meeloodoo meelna cuntada, 3 meelood cabidda, 3 meeloodoo meelna neefta in loo reebo. 3 meeloodba waa buuxinaysaa, markaasaa neefta kugu dhagaysaa. waa calaamadaha welibana waxaa loo baahan yahay inaad samayso, inaad ka korkacdo weelka adoo baahi u qabo. waidaa akalnaa laa nashbac buu yiri nabiga sal alla alay slam, dad waxaan nahay aan wax cunin ilaa ay gaajoodaan, hadday ay cunto cunaanna aan ka dhargin. qodobka saddexaad ee lagaaga baahan waa maxay? inaad soon naftan ku tarbiyaysid, soon aad ku tarbiyaysid. saa daraadeed xasan albasri wuxuu yiri nin u soo sheegto yiri nin qalbigiiba iga kakanaaday, wuxuu yiri man araada an yakhshaca qalbu, qofka jeceliin qalbigiisu khushuuco ishiisana ilin ka timaado, falyakul fi nisfi badni, calooshiisa haaf leha cuno, yuuna buuxinin marnaba. qodobka afraad ee qalbiga jilcin kara waxaa weeye walaalayaal, inaad waxa hareerahaaga ka dhacaya aad ku cibro qaadato. tusaale ahaan dabka oo kale, markaa cuntada karinaysid, dabkan dab ka daran inuu aakhiro jiro, inaad niyadaada gelisid. soonada markaa geshid waad aragtay kulaylka inta ay leedahay, waa cajiib wallahi. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay talfaxu wujuuhahum annaar, naartu wejiyaday marka horeba ay leefaysaa oo fiiqaysaa. soonada markaad biyo shab ku siisid jirka intiisa kale ma aadayd, wejiga way meesha ugu darano markiiba aad holaca iyo kulaylka aad ka dareemaysid, walciyaadu billah. marka waxyaalaha hareerahaaga ka dhacayo oo inaad ku cibro qaadato, qalbiga ayay kuu jilcinayaan, qaswadii iyo qalaylkiina way kaa baabi'inayaan. muqiirata ibnu sacd ibnu alakhram wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu mascuud mar kasta uu suuqa yimaado uu nimanka birta tuma arko iyo dabka markay afuufayaan u arko, ilaa labadiisa indhood ilmaa ka imaan jirtay. qodobka shanaad ee qalbiga kuu jilcinaya waa maxay? wacdiga inaad badsato, muxaadaraadka inaad dhagaysato, meelaha muxaadaraadka laga hayo, xataa haddii aad tahay mid yaqaano waxan inaad dhagaysato. saasuu ahaa nabigeenu sala allahu calayh wasalam. saxaabada markuu ka arko oo inay xoogaa gaabiyeen, wuxuu samayn jiray muxaadaro uu la istaagi jiray, sida xadiidka cirbaad ibnu saariya uu leeyahay wacadanaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yowman bacda salaati alghadaa, uuna wacdiyey waano kulligeen indhaheenni ilinka keentay. marka waanada iyo wacdiyada oo la dhagaysto, hurdada oo la yaraysto waxay ka mid tahay waxyaalaha. waan dadejinaya xoogaa waqtigii, waxaan u malayn waqtiga aad baan u dheereeyey, waa boobsinaya insha allah, waana gabagabaynaya insha allahu tacaala. hurdada in la yaraysto, dadkii hore sidaasay ahaayeen, waxay dhihi jireen jahanamo xasuusteeda ayaa ii diiday inaan seexdo. gabar baa aabaheed waxay weydiisay, aabba maxaad maaragtay adiga habeenii maalin u taagadaa oo la seexan lahday, ummadda way wada hurdaaye. wuxuu yiri ina naara laa tadacu abaaka yanaam, naar baa u diiday aabbaha inuu seexdo. naarta xasuusteeda baa aabbaha u diiday inuu seexdo. midda toddobaadna waxa weeye qofku inuu maalinta qiyaamaha xasuusto, iyo zaadkan uu haysta ee yar inuu zaad raadsado. watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa, inuu maaragtay uu sahay badan sii qaato. qodobka 8aad waxa weeye inuu mowdka xasuustiisa badiyo.
واسو قابنا يا آدي آد بان ماركتي وسو قابنا يا إن موت كحسوستي سقفك وبديو أبو درداء وحوليه وحا صدحنا وإيقا قسليان صدحنا وإيقا أوهيان وحا إيقا قسليو نين الدنيا رادين يو الدبا السعودة غيرنا أي دبا السعودة إساقا نين وحي المامسان أثناء الله المانسانين مد iska qoslaayo oo ogeyn in ilaahay raali ka yahay in kale saddexna way iga oohayaan buu yiri kii aan dadka ugu jeclaa waayidii aan waayay nabi maxamed ahaa sakaratul mawt ka markaan xasuusto iyo maalinta qiyaamaha markaan alla hor istaago ma jannaan gali doona mise naar ayaa iga hoosay walaalayaal qodobka sagaalaadna waxa weeye qillatul kalaam hadalka inaad yaraysato maanta dhan inaad hadlin dadkii hore waxay ahaayeen hadalkooda waa la xisaabin jiray hadalkooda way xisaabsanaan jireen ka waran maanta oo dhan wixii aad ku hadlaysay habeenkii markaa guriga tagta haddii warqad intii lagu soo printer gareeyo lagu dhaho intaana maanta lagaa qoray oo hal xabo aakhira ku saabsan aad ka weydo maanta oo dhan aad soo hoog iyo halaag ma aha marka hadalka badan in la iska yareeyo aad iyo aad ayay maaragtay qalbiga kuugu jilcinaysaa qodobkan u dambeeyana waxa weeye oo isaguna aad iyo aad muhiim u ah inaad la saaxiibto dadka ilaahay u dhow dadka wanaagsan la saaxiib kan aakhire ku xasuusinaya la saaxiib kuwa xanta badan ka fogow kuwa khiyaanada badan ka fogow kuwa dadka isku dirdira ka fogow kuwa taacada ilaahay ka fogow mar walba waxaad la saaxiibtaa oo agtaada aan laga waayin maaragtay qofka wanaagsan nabigan xadiis buu ku tilmaamay qofka wanaagsan saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun nabiga xadiis fara badan buu ku tilmaamay qof walbana qofka uu jecel yahay ama saaxiibka leeyahay maalinta qiyaamaha isku meel joogayaan marka qodobka u dambeeyana waa maxay mar walba inaad ilaahay barido in ilaahay qalbigaaga maaragtay qooyo ilaahay qalbigaaga jilciyo ducada aadan iloobin أوضن إذن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي اللهم إني أسألك دعادي هدا أن شغنا ماركتي ويدي ستد الله سبحانه وتعالى انت أسام ولا ليال ما انتو كسو قوبيا مال انت قدام بيس محاضرة وحان كردق دونا قلوب تنبت قشي إلهي سبحانه وتعالى مال انت قيامه ويري ماركتي إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي قاسا كهل دونا هذا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته